sow taliye baasoo ba'an oo warmoogii taydii ma beenayn cabdiqays oo isla Jabuuti jooga ayaa hees baalay soo tiriyay oo ka soo jawaabay heesta beledweyne heesta baalayda siinkii u balaadho badaa lala jibaaxay intaan boholo lagu dhicin ayuu oranayaa cabdiqays Maxamed Mooge Liibaan ayaa ku luqeynaya tuduc hadaynu ka soo qaadano cabdiqays Bahadraawi wuxuu ku leeyahay bulshada iyo kooxda hadma wada boqosheen baabuurka yaa waday ma mid aan biraysnayn kuma taliye baasoo beenayay taadii bal noo sheeg ninka baan intaasi hadii ay dhacday Hadraawi oo Muqdisho jooga ayaa ka soo jawaabay hees beeraad leeyahay ayuu ku soo jawaabaya wuxuu ku oranayaa cabdiqays bulshada la socoto barbarbaad ka saarneed baabuurka dhoofo batarkii ciyaartaba adiga ka booday cabdi oo baroortuba ka badweeyay meydkay baybaysigaagiyo beeraadkayga daa halkaas ayuu ku joogsanayaa heesta lama la ximin lagumana luuqeyn halkaas ayuu ku joogsanayaa murankii suugaaneed ama doodii suugaaneed cabdi aadan xaad qays iyo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi dhexmartay Maxamed Mooge Liibaan hadaynu dhinac kale iska taagno ama aynu weydiino su'aasha sidoo fanka Soomaaliyeed u arko muxuu ka yiri Maxamed Mooge Liibaan lagu dhisan yahay dhaqan مثلا والله والله ميرن وحويان ديار ميرن مثلا هذا كسو قاطو هلوي ولا بيري والله ولا معي حدات مرحبها ايكتو والله قالوا لي يا ويلكو قالوا يلي والله ميرن وين جديد بقى هدي مثلا فنك عندي بقول نقول وانا يقول نعم هذا مثلا waxaad garan kartaa in heesa Axmed Maxamed Goodu sameeyay shimbir ninka la yiraahdo qiimo gaaran aan ugu hayo ninka مثلا كمال وعليو جناد لي ودانتدي aynu soo qaadano tusaalayaal kamid heesihii uu qaaday Maxamed Mooge Liibaan oo ay kamid tahay heesta ku saabsan ardayda iyo waxbarashada waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba أو بحلقة ورابشو heesaha la yaab kale xusuusta ku reebay dadkii yaqaanay ama maqlayba waxa kamid ah heestii uu kamankiisa u tiriyay anigu tagaa dubiyola bal aynu soo qaadano midhiya laba heesihii halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta qaran iyo Maxamed Mooge sidoo ugu aasay aynu mid iyo laba ka soo qaadano heesihii kale ee kalgacalka iyo la xawga lahaa ee Maxamed Mooge Liibaan ku qaaday mudankii haweenkay marwadii la sheegay dadku wada ma jeeray malama waxbada kalgacalka يعني
lagu talaale ubax lagu mariyey qurux lagu manaystay halkaas kaam ciidan oo lagu tababaro ilaa dhowr boqol oo mujaahidiintii u dagaalamaysay ururkaas ahayd habeenkii u dambeeyey noloshiisa Maxamed Mooge waxaan ku wada caawinay dargad kaamka agtiisa ahayd waan iska sheekaysanay waxaan ka wada sheekaysanay waayihii halganka ee xilligaas waxa markii ugu horeysay aan Maxamed muddo dheer ku arkay intii aanu halganka wada joognay isagoo sita kabankiisii habeenka wuxuu marmar kabanka garaacayay oo uu ku luuqeynayay qaar ka mid ah heesihiisa oo si gaagaaban u googoosa oo aanu dee dhammaystireen midna dabeeto sidii aanu u wada joognay ayaa mar keliya wuxuu yidhi aniga kolley gacan iga xaq daran bay dilaysa dabeeto arrintii ayuu haddana mar kale ku celiyey markaa waxaa noo yimid mujaahid yar oo la odhan jiray Yuusuf gar allah u naxariiste oo casho noo keenay cashadeedoo ahayd ka koobneyd qamadi ayuu wuxuu noogu keenay kaamkoo dee agtiisa aanu fadhinay tiibu haddana ku celiyo yidhi aniga kolley gacan xaq ayay dilaysaa waxaa kaloo aynu tusaale usoo qaadan karnaa heestiisii ugu dambeysay ee hayhiifin aabow ee uu tiriyey dabayaaqadii bishii May 1984 ka hor maalmo intii aan la tooganin oo midhaheeda uu isagu iska lahaa la ximay oo uu ku qaaday ayaan daro codkii iyo laxankii maanaan helin laakiin tii midhihii baanu helay iyadoo dib loo tumay oo uu karoone laxankeeda sameeyey bal iyadana aan in yar ka soo qaadano ifinabo ohay habaarine kamaarina qayrkay aniga horeeyo halgankiyo dagaalkana waxa lagu hogaanshaa awraarta masada hananka iyo luuqdiyo kubaaba heeskiyo waa hadaladayde sawtaan hore u idhi tolay reer hargeyso tolay halkaadiga jirtaan bay dhaxantu iga haysaa tolay aan ku soo xidhno barnaamijkan hees aan u tiriyey 1985 sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay maalintii la dilay Maxamed Mooge Liibaan sidaa ayuu Maxamed Mooge Liibaan taariikhda ummadda Soomaaliyeed ku gelayaa haliyey naftiisii qaaliga ahayd codkiisii xariirta ahaa gacantiisii macaaneyd iyo mawhibadihiisii faneedba u huray dib u xoreyntii dalkan iyo dadka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yesimiganayo codmiciinsanayo maaraha ku jera geerida ma sugtay Maxamed Mooge tuuga ano mahadhoreenkay rajadaan